sidaad nooga barateen shirkadahan bil walba dhamaadkeeda waxaan abaal marinaa qayb ka mid ah macaamiisheena abaalmarintaas oo u qaybsan dhowr qaybood oo ku salaysan adeegyada ay macaamiishu ka isticmaalaan shirkadda abaalmarinaha ay maanta bixinayna waxay isugu jiraan 3 abaalmarinood macaamiisha isticmaasha adeega aqoon maal bil walba 250 macaamiil oo kamid ah waa shirkaddu markay bishu dhamaata ay abaal marisaa maanta 250 macaamiil oo dhammaan gobolada dalka oo dhan kala jooga ayaan abaal marinaynaa sidoo kale waxaan abaal marinaynaa hal macaamiil oo kamid ah macaamiisha shirkadda oo isaguna ku guuleystay barnaamijka jidka maka oo ay shirkaddu ugu tala gashay sanadkan inay geyso beledkii barakaysnaa iyo xaramkii ilaahay sidoo kale waxaan abaal marinaynaa 42 macaamiil oo ku guuleystay barnaamijka hano hadiyadaada barnaamijka hano hadiyadaada macaamiisha ku guuleysatay waa macaamiisha shirkadda ka isticmaashay internetkana ku isticmaasho mobilekooda ama mayfayada lagu isticmaalo internetka marka 95 ka macaamiil oo ka kala tirsan macaamiisha ballaaran ee shirkadda Telesom ee kala jooga gobolada dalka oo dhan ayaynu maanta halkan ku abaal marinaynaa macaamiisha hadiyadahan waxay ku helaan si tijaabi nasiibkaaga qofka waxa shardi ah inuu kamid yahay macaamiisha isticmaasha adeegyadaas aan soo sheegay barnaamijka hana hadiyadaada seen hore u soo xusnay waa inuu macaamilku kamid yahay macaamiisha Telesom isla markaana isticmaasha internetka kuna isticmaasha mobilkiisa ama mayfaygiisa macaamilku isaga ayaa soo dalbanaya barnaamijka wuxuu numberka 3 u soo dirayaa ereyga abaalmarin barnaamijka cimro ama jidka maka waa inuu macaamilku kamid yahay macaamiisha ku hadasha koolasha dibadda dadka telefoonkooda ka garaaca dibadda ayaa soo diraya ereyga cimro waxayna u soo dirayaan numberka 3 saaka sida uu gudoomiyuhu sheegay waxaan isku niminay inaynu abaal marino qayb kamid ah macaamiisha shirkadda Telesom ee kala duwan ee isticmaala adeegyadeeda kala duwan runtii waa wax aad iyo aad u muhiim ah in la isugu yeedho macaamiisheedii oo shirkaddu ay macaamiisheeda bar kamid ah oo ay soo xulatay dariiqooyinka uu gudoomiyuhu sheegay in la abaal mariyo taasi waxay ku tusaysaa sida ay shirkaddu heegan ugu tahay inay ku celiso macaamiisheeda ay wax ku celiso iyadoon intanuun ahayn iska koobane aad ogtihiin barnaamijyada xoog gale ee ay shirkaddu ka qayb qaadato hadday noqoto waxyaalaha dalka ka dhaca hadday noqoto magaranaysa wax la wixii investment ee dalka ka jira oo ay tahay company-ga ugu horeeya runtii shirkadda Telesom waa shirkad weyn oo ka mid ah shirkadaha waddanka ka ganacsada waana shirkad bixisa adeeg isgaarsiineed iyo adeegyo kale ballaaran ee ka mid yihiin financial light bay bixisaa some gas bay oo dadka waxay ugu tala gashay inay environmentka kala dagaalanto dhuxusha si deegaankeenu u noqdo deegaan macna dhalaya waa shirkad runtii u taagan in shaqo abuur badan ay ummadan ka geysato waddankan ku nool waxa kale oo muhiim ah iyaduna inay samayso oo dadkeeda had iyo jeer uga fikirto ama macaamiisheeda u daadihiso inay keento teknolojiyadii adduunka u dambeysay maadaama ay technology ka shaqaysato isgaarsiineed waxa nagu waajiba inaynu dadkayga ka qabtirno isgaarsiin ku filan oo laga wada heli kara dalka oo dhan waxaanu ku dadaalnay in qof kasta Soomaaliland daroomi iyo magaalo geed kasta jooga inuu adeeg helo sababtaanu waxa weeyaan dadku inay noqdaan ummad la jaan qaada qaybaha kala duwan ee dunida marka adeegyadan aanu bixinayno ee hadda imika la idin sheegay ay ka mid tahay hana hadiyadaada jidka maka muxuu ahaayay aqoon maal dhammaantood waxay qayb weyn ka qaataan dhalinyarada kobaceeda waxaan halkan maanta uga mahad celinayaa shirkadda Telesom oo isiisay run ahaantii abaalgud aad u weyn run ahaantii shirkadda Telesom waxaan ku xidhnaa muddo aad u dheer alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta waxaan u mahadnaqayaa shaqaalaweynaha shirkadda Telesom iyo macaamiisheeda dadka macaamiisha ah waxaan leeyahay ku xidhnaada shirkadda Telesom waayo waxay bixinaysaa adeegyo aad u wanaagsan insha Allah markaan tago beedkii barakaysna shirkadda Telesom aad baan ugu soo ducaynayaa